dad bin aadan oo ashyaa kala guursa amase aroos la yaab leh shan aroos oo la yaab leh ayaa maanta idihaya halka mid ugu dambeeyo yahay mid ugu la yaabka badan oo la yaabi doonti assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh daawadayaal soo dhawaada saaxiibayaal horta aad iyo aad baan kaga mahadcelinaa maadaama aad gaarsiiseen 1k subscriber dhammaantiin asxaabtayda youtube-ka waa idin salaamayaa aad iyo aad u mahadsantihiin maadaama aad nagu soo biirteen waxaan kaloo soo dhaweynayaa inta kale gadaal nooga imaan doonto waxaan rajaynayaa inaan muuqaalada like saari doontaan like waayo waxay support karaysaa muuqaalkan inuu meel dheer gaaro waa hagaag intaasi kadib maanta waxaan rabaa barnaamijyada hore waa ka duwan waxaa idin hayaa top 5 aroosyadii ugu la yaabka badnaa adduunka mise 5 aroos oo aan bini aadan isguursanin shan aroos oo bini aadan asagu isguursanin marka ku leeyahay waxa waaye bini aadan asaga isma guursanin dad bini aadan oo ashyaa kala guursa amase aroos la yaab leh shan aroos oo la yaab leh ayaa maanta idihaya halka mid ugu dambeeyo yahay mid ugu la yaabka badan oo la yaabi doonti waa midka aan la yaabay midka shanaad ugu dambeeyo waa midka aan la yaabay arooskaas dadka qaar shayaal bay guursadeen laakiin mid ugu dambeeyay maxay guurstay shay ma waxay guurstay dadka qaar waxyaalo kala duwan ay guursadeen naagtan ugu dambeeyso maxay guursatay ayada bal daawasho guurkii boombalada nin guursaday boombalo nin lagu magacaabo oo u dhashay wadanka Kazakhstan oo lagu magacaabo Yolisko Kotechko ayaa guursaday boombala nooca dharka loo geliyo kadib markii uu caashaqay wuxuuna u dhigtay aroos aad iyo aad 2022 aroos weyn ayuu u dhigtay oo la yaabo aad iyo aad oo laga sheekay karin ayuu u dhigtay muddo ku siman hal sano kadib way ka ciladooday boombaladii oo waxay u baahatay in la soo farsameeyo waxaan uu geeyay goobaha farsamada mar labaad ayuuna haddana aroos kale u dhigay oo la yaab leh 2022 gudaheedii nin u dhashay wadanka Japan ayaa asagana guursaday kartoonka filimada jila kadib markii uu yaraantiisu caashaqay asoo yar ayaa lagu ciyaarsiin jiray iskuulkiisa iyo gurigiisa waxaa loo daari jiray jinijini noocan u eg kadib jinijinigii ayuu jacayl xadaaf u qaaday dhowr sano kadib waan uu mehersaday waxaan uu dhigtay aroos la yaaba hadaba markay todobada ka soo baxeen ayaa la wareystay waxaan uu sheegay in uuna rabin inuu weligiis ka fogaado boombalada noocana uuna u qabo jacayl xadaafa uuna weligiis cilayn doonin uu la sii joogi doono noloshiis inta ka dhiman uu la qaybsan doono boombaladan maadaama uu said u jecel yahay waqti badan noloshiisana uu ku bixiyay si uu jacayl uu qaado boombalada noocana hadaba ma jeclaan lahayd in aad wax ashyaa guursatid ama sida ninkan oo kale sheekadiisa aad ula yaabtay in sheekadaada adigana loola yaabo hadaba muuqaalkan ayaa ah asagana mid la yaaba oo aan la yaabay oo yaani iga yaabiyay nin guursanaya boombala jinijinia kadib markii uu caashaqay yaraantiisa ilaa haddana uu jecel yahay sida uu sheegay 2018 ayuu guursaday waxaana uu hadda uu kula nool yahay wadanka Japan magaala madaxdiisa Tokyo aad iyo aad kadaro dibidal haweenaydan ayaa ayadana waxay guursatay geed noociisa la yaab leh oo aan weligay Soomaaliya ku arag waayo geedkan kor wuxuu u eegyahay fiyoorihii aan naqaan ama geed hindi ayuu ugu eegyahay kor hoosna wuxuu ku leeyahay milyan qodxa haddii aad Soomaaliya ku aragtay geedka noocana noola wadaag commentiga nooga sheeg haddii aad magaciisa taqaanin sidoo kale noo sheeg aad iyo aad gabadhan ayadan waxay guursatay geedka noocana aroos waaliyay u dhigatay ayadoo iyo rooti u soo qaaday geedkii sidii inuu yahay bini aadan oo cunto cunaayo ama keek iyo waxaas afka ay u gelinaysta amal xaflad weyn ay dhigatay tolkeeda isku imaaday aabaheeda iyo hooyadeeda iyo ehelkeeda la socdo geedkii bay shumis kala daashay oo xaflad weyn iyo ubax u xirtay oo maro ku xirtay oo yaa naashnaashtay la yaabkiisa geedkan wuxuu leeyahay dhowr qodxe haddana kaaga sii daranay waxay sheegtay naagtan haweenaydan in aysan halkan geed kaliya guursan ay guurtay geedka noocana meel kasto ay ku aragto uu yahay xaajigeeda ama soojkeeda uu yahay hadaba haddii aad taqaanid geedkan commentiga nooga
2007 ayay caashaqday mar ay safar ku timaaday wadanka taaladan ay ku taalo taaladan magaceeda waxa la lahaa Ellison waxay u maleynaa inay ku taalo Ingiriiska ama meelahan ama Faransa inay ku taalo u maleeyaa taaladan waa taala caana oo la dhisay waayadii hore gumeystiyaasha la dhisay ayay caashaqday haweeneydan oo ay meersay bal waa la yaabe waxay sheegtay inay taaladan ay si xad dhaaf ay u jeclaatay kana daawo jirtay markay joogtay wadankeeda Faransiiska ayna ka heshay waa la yaabkiisa waxay sheegtay in ay barabto mar dhow in ay yaani arooskii u labayso mar labaad ee aroos u dhigato ayna jeceshahay taaladan inay uur u qaado waa la yaabkiisa ma la yaabta sheekadan gabadhan ayadana oo rabto taalo inay uur u qaado bal ay weydiiyay taalo uur ma loo qaadi karaa sideena loo qaadaa aad iyo aad wax walba ay imaataa way dhunkataa wayna ka tagtaa gurigeeda ayay ku hooyataa waa la yaabkiisa sheekooyinkii hore oo dhan waxa ka daray sheekadan oo Ahmed ugu dambayso shanaad sheekadani waxay tahay gabadhan u jeedaan aroosida oo dharka cadad wadato boodbooday islaamiga dhaxdiisa waxay guursatay ninka wada u maleynay ninka ayada guursaday waa aabaheeda ninka dhinaca taagan oo ku meherinayo waa saaxiibkeeda ama boyfriendkeeda aan waxa u maleynay inay khiyaano tahay ayada u mehersanaaye wuxuu ku meherinayaa mataqaana nafteeda ayuu ku meherinayaa ayada isku meherinayaa macna bal ani waa la yaabay qofkii guursaday boondo waa u jeedaa boondadana ay qabto waa dhihi karaa boondadana qaba waa dhihi karaa bal qofkii naftiisa guursaday wuxuu sheegi ayada waxay ku canducoonaysaa macna inuusan guurka caadiga ah wax jira aan ahayn qof walba uu naftiisu jeclaado uuna guursado naftiisa hadaba ma jiraan gabdho saan oo kale oo Soomaaliya joogo oo naftooda jecel oo rabaan inay naftooda ayagana guursadaan sida gabadhan oo kale daneynaya inay maalin u xaflad ay dhigtaan ay naftooda ay guursadaan sheekadan sheeko la yaab badan maan arag inta sheekooyinkan aan baaray ama raadinay waayo waa sheeko la yaab leh oo aad iyo aad la yaabkeed u leh oo anigu aan la yaabay bal qofka asaa isguursaday qoftan way iska socotaa waxaan ku meheriyay ma taqaanin waa boyfriendkeeda ama saaxiibkeeda waxa kale oo la socda ma taqaana yar oo ayada ay sheegtay inuu la nool yahay inta nolosheedaba ay jirto inuu saaxiib u yahay ama wehel u yahay eegan waxay sheegtay inuu saaxiib u yahay ayadana is qabto anu waba ka shakiyay ama eega qaba wuxuu waa gaala ilaan diin malaana waxay u dhaltay wadanka Talyaani ayadana aad iyo aad haddii muuqaalka halkaan aad soo gaartay subscribe iyo like ta hilmaamin sheekadan waxa waa share garee meel dheer gaarsiya sida naftaada loo guursada Soomaaliya ani waa ka yaabay idinkan hadda la yaabteen aad iyo aad wala yaabi kartiin oo wax la yaabo waay gaalo waay waxaan diin male oo waxay rabaan ba iska sheegaan inta sheekooyinka baaraya sheekooyin la yaab leh oo fara badan ayaa arkay tobankan ayaan jeclaaday inay idin soo gudbiyo hadii aad jeceshiin inay idin soo gudbiyo sheekooyinkan amal ama sheekooyin ka daran ama kuwan iyo kuwa lamid ah waxa idin ka codsanaa inaad comment ku soo qortaan wixii dooqiina ama jeceshiin inaan ka soo hadlo sidan qof ay guursaday qof dhagax guursaday qof ciida guursaday iyo waxyaalo lamid ah ma jiraan aroos Soomaaliya oo noocan amal ah oo ayagana yaani dad yaani aan guurkooda aan ahayn guurka caadiga la yaqaan oo waxyaabo kala duwan guursaday waxa la sheegay in Soomaaliya inuu guursaday computerkiisa oo ku nool Bakaara oo la yiraahdo Abdi Fatah ninkaasna dad taqaaniin asagana comment-iga ugu waco oo loo soo sheego anaga ummad muslimiin ayaan nahay in waxaasi wax la mid ay naga suurtoobaana waa wax laga fiicaya diintan ogoleyn hadaa tahay qof muslina waxaan ku leeyahay ka fogow waxyaalaha gaalada ku aragtid ama maalayacniga ama ka saari kara diintaada waxaan qof muslina ahayn hadaad gabar muslina tahay xariga kuma qabto oo kuma xirmo waa inaad taas ogaataa aad iyo aad waa idin salaamay dhamaantiin madaxa ay saarantiin hadii aad halkaas soo gaartay waxa ka codsanaa inaad like gareysid muuqaalka share dhahdii sidoo kale la wadaagtid asxaabtaada muuqaalkana like ta noo saartid like ta waayo waxay caawinaysaa muuqaalkan inuu dad badan u gaaro ama dad badan ay dhageystaan oo ay wax ka faa'iidaan ama sheekooyinkan la yaab kale ayagana ay ku madadaashtaan waxa idin leeyahay maalintu hay idin wanaagsanaato goodbye